السلام عليكم. برتني waa Faa'iida Channel. Fadlan haddii aad daawada ku cusubtay, subscribe dheh. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa macallin iyo ardaygii oo lugeynayay meel kayma ah ayaa sawirkiisa waxay u arkeen kabo uu lahaa nin beeraley ah. Beertaasi oo uu kula soo baxo nolol maalmeedkiisa aanay ahayd goortii uu ka wixii ee uu tagi lahaa gurigiisa. Ardaygii ayaa intuu macallinkiisii eegay ku yidhi aynu kabaa ka qarino ninka miskiinka ah kuna dhuumana geedka si uu jahwareero markuu waayay kabihiisa kabacdina aynu eegno waxa uu sameeyo. Macallinkii ayaa ugu jawaabay, wiil yahow ma fiicna in dadka masaakiinta laga xaraabaysto lagana dayo qosol. Waan ogay inaad ka dhalatay qoys qaniya, balse waxaa jira waxyaabo kale oo laga helo farxad iyo qosol ee bal raadi wax kale. Macallinkii ayaa ku yidhi isagoo hadalkiisii sii wata, lacag yar u dhex geli kabihiisa, markaas ayaynu ka dhuuman doonaa si aynu aragno saamayntu ku keeno arrinkani. Ardaygii sidii ayuu yeelay, waxaana u dhex geliyey xogaa lacaga. In yar ka bacdi waxaa yimi ninkii miskiinka ahaa beeraleydana ahaa oo aad u diifadaysan kana muuqda daal badani. Markii uu kabihiisa yidhi gasho ayaa waxa uu arkay lacagta ku sii jirtay kabaha. Uu yaabay, waxaanu la yaabay siday lacagtani kabihiisa u soo dhex gashay. Hareeraha ayuu eegay, balse kuma arag cid joogta. Intuu lacagtii jeebka gashaday ayuu jilbaha dhulka dhigay, isagoo gacmaha kor u taagaya, cod dheerna ku leh, allahayow adaa mahad leh. Waxaad arkaysaa xaaskayga xanuunsanaya iyo carruurtayda gaajada layl daran, waana idiga soo furatay dhibaatadii. Wuxuu sii watay mahadnaqii isagoo ilmaynaya. Arrinkaasi saamayn ayuu ku keenay wiilkii amba ardaygii. Waxaanu ka naxay ninkan miskiinka ah ee dhiban. Markaasuu macallinkii weydiiyey, kuna yidhi isagoo hadda kama farxad badnid haddii aad markii kabaa ka qarin lahayd. Ardayga ayaa ku jawaabay, maanta waxaad i bartay cashar lama ilaawaan ah. Waxaanad i bartay in waxbixintu ay leedahay farxad iyo reerayn dheeraada. Macallinkii ayaa ku yidhi ardaygii, hadda ogow inay waxbixintu noocyo badan tahay. Hadalka intiisa wanaagsani inay tahay waxbixin, ducada walaalkaa inay tahay waxbixin, cafiskuna inuu yahay waxbixin. Daawada dulucda sheekada ayaa ah in haddii aad wax haysato ummadda bar ka midii aanay haysan, inaanad ku jeejeysin kuna walacsan nimcada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey. Soomaalideena waxay ku maahmaahdaa, bisadna waa ka ciyaar, jiirna waa ka naf.